والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركل أيام مقالة برمهام على إنجليزي بيرتين كسر السلام يا عيد مبارك. إلهي عيد الجديد هاي المقاس يبصر شيء برواقه. إلهي فرحة ديو اسكتوني هاي المقاس يو. وحان ما أنت الرباح وباقي جن يدك عيد يرهر سمال لان يوقف هاي السنة يا أرنتا باق شعب وحها مثل بهاي أيدين ما يمحل الله صوب بيجي نجاه اللي يكون ذي يدور الربع إنش لما رن هبابيو أيدين ما يمدح لنا يسكت جوابي تري تسبيه لنا يسكت جوابي تري والريمة مهم كأود أيدين ما بلش سمر تري مدول بين تقول جوده كحصو كريس كحصو أيها الكعم بارين إيو محل إلى فريق سمر تري مدح ويننا مركم ميكروفون كقبصوا تسبيه المعارض أنت أنا يشيني أيدين ما يفريدوا مرتين وحاي ما أنت كويس يا سدح اللي ذا سدح حسبك الهجامية دنتو ذي وشيء مركي ومدحوين ولا كويس شوي وران فريا بس بيد معار لبض اللي ذا ركوهن شوي مدحوين ما هذا المرن قليل هنا ما أنت سيد وشيء واحد لكن ما أنت يدين مي فريما يسوون من الهاي وهالك يسوون مرين الهاي ومدمج كلام بارين لها وحنلاقي هاي باقة مهم بوها باقة سوحها مد بوينت يدا إنك خلطن تابانيا هلا ميل مريو مدح حكومتها إسكت يسو أفرت عيالي مربى كهاد ليسو يرجع مسؤولين تدبر الجزء الريحة يلا لا يهضله يجوا خلط كأرخية وخلط يجي عمل كل كذا والدارا اللي نور نسمي يودوين بقى نور نسمي ما أنت نول بوا كمر خاطئ وكمر كعيا سجال لا تكسرني وإحنا وقف سمينا نول بوا كمر كعيا لكن هلكي نتلاقيني هلكي أنو تعبني يهلكي أن دون منا معها waxa khaldan hal la toosiyo un baa la yiri xumaan kale lama sameeyo waxa khaldanna waxa weeyaan qaraabakiil iyo cadaalad darro inta hadii la saxo oo dalka la wada yeesho oo dadka la wada yeesho iyo aqligu uu hagaagay wada iskuuneeda laga shaqeeyo furfurkeeda iyo kala dilkeeda yaa laga shaqeeyay waynu ka sii daraynaa xukuumaddu waxay moodaa maalin ka dambeysay inay hoos noo sii wadaan war meeshii waxay noqotay meel loo soo shaqo tago oo laga taajiro ummadda waxeeda uu lagu boobay meel hore u socota maaha ummadda mar walba u dhaaranaysaan aad mar walba u dhaaranaysaan aad mas'uuliyadda u qaadaysaan billaah calayk sideeda ugu shaqeeya oo ka daaya dulmiga iyo eexda iyo maxaa la yiraahdaa waxay maraysaa maanta inay yaro aan dalka xil u haynin oo aan wax allaale wuxuu ummadda u hayaajirin inuu marba qof muhiima mas'uul ugu hanjabo haddaad sida yeeli wada xilka ka qaadaya xilkii baa wuxuu noqday wax la isku abuyus gareeyo waxa uu noqday wax maxaa la yiraahdaa la isku barashar gareeyo ummadii waxaad moodaa inay irsaaqadii ilaahay laga sugayay ay maxaa la yiraahdaa ku xidheen marba xil ay cid u qabtaan oo lagu gumaysto xilka waxa u qabateen ina ummadda ugu shaqeysaan ina qof ugu shaqeysaan ugu meedaan qabanin ina yaro maxaa la yiraahdaa madaxweynaha waxay marba idin barashar gareeyo u meedaan qaban xilka xisooda ummadda xil baa u qabateen dhaxu ahaada hore u wada u shaqeeya istabka intaagana iyo stage-ka intaagana hore uga gudba qof halkii wax ka dhaqaajinaya ma jiro mid wala xafiiska ugu yimi uu mushaar ku qaadanaya miisaaniyada yarna maxaa la yiraahdaa uu haysanaysa uu kaligiis ku filaysiinaya ama cid wax ka siinaya war ilaahay ha laga boqo ummadda ha loo shaqeeyo oo qarankani 29 sanadood buu jiray daaraha dadku dhistayeenna daawanine ummadda yuhuunteeda iyo maxaa la yiraahdaa moralkeeda ha la dhiso horumar ha la sameeyo ummadda iyo adduunka meel wax kula qaybsano oo taargada oo qorshe inoo sameeya iskuuladii baa la xiray oo waalidiintii waxay guryahay ku xidhan yihiin oo carruurtii bay la tacaalayaan وهذا وزارة الحراسة waxay ku leeyahay macallimiinta hala siiyo maxaa la yiraahdaa mushahar meeday lacagtii COVID-19 loo ururiyay war meeday maxaa la yiraahdaa hay'adan la yiraahdo hay'adda aafa qaran waxay inoo haysaa miisaaniyad waxay leedahay miisaaniyad sanad walba loo asixiyo waxa loogu talagalay in aafooyinka qaranka lagu dabaro abaaraha lagu dabari jiray disaasterka kale inagu yimaada lagu dabari jiray iminka waxa sanad walba waa la kaydsanaya meel baa la iska dhiganaya hadhow waxa loo dheeyo xaaladahaas oo kale wax ka qabataa maxaa la yiraahdaa waa in mushaharkii macallimiinta أتليس ولا قصدي إسكولنا برايفت كا إنت أمد العكس في الكورنية إما أنت كحسون والدين تبلا عمل كاي فيها بتحترا كحسون أو محل إذا لوصل حدا بلاد سندك وسنة سنة لوصل حدا بلاد معلمين يدوك مشاركة فيها والمليون دولار بقى كم هذا كشواتين وإذا كنت رأي ككفر قراية إساس تربى اللي قلت له حالات هذاك اللي قلت له تيل وحلاقة ولا قبضين تربى اللي قلت له
ilaahay ka baqo oo ummaddan u soo shaqo taga unbaa garateene u naxariista maydaan garanin danyarta u naxariista isu naxariista dal iyo dad wada jiro walaala ahoo wax wada qabsada abuura waxaan leeyahay oo mar labaad iyo mar saddexaad idin leeyahay farxad ku ciida laakiin waxa la isu sheego ee la isu tilmaamo ee la yidhaahdo yaan maxaa la yidhaahdaa ummadda waxaa laga bedelo yaan afar ciyaalahoo inta meel ka soo hadlo loo samaynin waxaa ka qurux badan mas-uuliyiintu intaa isu tagtaan tidhahdaan waar xaggaynu waxaasaa laleey waa aqalnoocay iyo wax ka bedelnaa intaa marba inay yar lacag soo siinaysaana leediin ka daba hadalkii hadla ha laga xishoodo waxaa ummadda dhexa loo noqdo ummadda ha la hoggaamiyo wanaag ha lagu hoggaamiyo madaxda maanta waxaanu idinku tuumaynay geesinimo waxaanu idinku tuumaynay maxaa la yidhahdaa dal jacayl waxaanu idinku tuumaynay maxaa la yidhaahdaa wixii aad ka dagaalanteen ee aad ka baxdeen ee aad idinkoo yaryar ka dhaqaaqdeen inaad maanta garowsiyo haysaan baan idinku tuumaynay tiibaa maanta dadka ku wadaanoo aad daawanaysaanoo maxaa la yidhahdaa ninba nin meel ku dulmiyaya haddana aydan hus ka odhanaynin berita marka laydinka dareeray yaa xukumaysaa marka qof waliba gidaar ka baxay yaa xukumaysaa ummaddu iyadaa damqatay xamar baan idinka soo dirin farmaajaan lug ku lahayn farmaajaa inagu dallacsiinaysaan iyo khayro maalin walba leedihi cid bay nagu soo direen intaa in idinkuma soo direen dadku iyagaa damqaday oo waxa ay arkeen ka damqadaye daweeya madax baa u tihiine daweeya oo dalkan waa la wadaleeyo nin waliba xaq u leeyahy inuu ka hadlo waa lagu wada tabcay kuwii u naafoobay iyo kuwii u dhaawacmay iyo kuwii caruurooda u agoomay unbaa gidaarada wada hogtaa oo naf sugaya oo in wax loo qabto sugaya ummadda waa loo soo halgamay oo nin waliba nin qalin lagu halgamay nin hadal lagu halgamay nin qori lagu halgamay waa loo halgamay dalkana waa la wada leeyahay dal dhisa oo ummad dhisa oo ummad yuhuun iyo walaaltinimo ka dhaxaysa dhisa dad kalaa kala wada qoqobaysaan ee reeraha u wada qaqabay maxaa la yidhahaa magacyada u kala wada dhiseen daddaaya mas-uuliyeed baa idinka saaran xil baa idinka saaran waa laydiin idmaday waa laydiin dhaariyey waa u dhaarateen haddana hortiinaa lagu dulmayaa ilaahay ka baqoo intaa wax ka bedela wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idin leeyahay reer somaliland ciid mubaarak anigu baanu ciidin laakiin idinka ayaan farxadda ciidda maanta fariinta halkan idinka soo diraya waxaan rajaynayaa insha allah inaynu isku duubnaanno dal iyo dad wada jirana yeelano sidaa ayaynu ku gaadhaynaa horumarra ku gaadhayna laakiin inta ummadda sida loo kala qoqobayo meel la gaadhi mayo waxna qabsan mayo aad baan idinka salaamayaa aad iyo aad iyo aad baan leeyahay